Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta isku soo noqosho wacan. Maantana waxaan rabnaa inaan barno waxaan noo socda kooriskeeni graphic design. Waxaan u gudagalnay qaybta design-ka. Kan waa cashirkeeni koowaad ee qaybta design-ka. Maantana waxaan baran doonaa sida loo sameeyo clip and mask. Si isku dhexgelay sawir iyo shape oo qaybta madaxa loo sameeyo iyo qaybta gudihiisa loo geliyo labadaas qayb aan baran doonaa maanta iyo shape-ka hoos oo sida loo qoloociyo. intaas arrin maanta inaan barano oo halkaas ka bilaabo doono design-keeni. Waxaan rajeynayaa inaan soo practice garin doontaan oo ku soo celin doono. Sidaan dhahno hadda file cusub soo furanaynaa oo file poster 1080 isticmaalayna. Posterka halkaas aan ku sameynaynaa oo sida loo sameeyo halkaas kula arki doonaa. qaybta koowaad haddaan isku imaadno marka ay imaadaysaa qaybtan oo shape-iska hore u soo barno shape-iska. qaybta markaas aan u riixdo waxay imaade inkan ku qoran tahay eclipse ku qoran tahay imaade kasoo imaado eclipse imaade markaas aan u imaado halkaan dhigto kalarkaaga bedeli kalarkaaga ku siisan kartaa anaa kaas siisanayna marka halkaas aan u dhigno qaybta marka halkaas aan u dhigno waxa soo qaadanayna marka sawir qaybtan bariis ku qoran tahay ku dhufanayna markaas sidaan dhahno sawirka meesha dhigtada yaqaano anaga mid soo qaadanayna sawirkan aan u targelinaa ku sameyno marka sidaan dhahno sawirka xogaa transform ku sameyno waxa iska yareynaysaa marka sidaan dhahno wilo si yareynaysaa halkaan dhiganaysaa qaybta kood marka clip and mask si laba qaabood loo sameeyo sawir korkiisa inay imaado oo dhahdo clip and mask oo sidaas clip and mask uu sameysmo qaab kale loo isticmaalno ayadana waa inaan dhahdaa alt marka uu qabato marka calaamadaas ku soo saaro calaamadaas noocaas marka ku soo saaro aad dhahdo click asiiso sidaasna iyadana loo isticmaalaa labadaas qaybood oo clip and mask loo sameeyaa qaybtan oo gudaha loo dhexgelino waa isla aragnay qaybta oo madaxa banaanka iyadana isla arki doonaa hadii aan intaan ka furno qaybta banaanka iyadana waa isla arki doonaa oo madaxa banaanka loo soo bixinayo sidaa markuu yahay hadda clip ayaan ku sameyn doonaa oo is dhexgelin doonaa markaas aan isku dhexgelino waxa imaade doona hadan asagan copy ka bixin doona sawirka layer-ka ma sawirka imaade right control D J ayaa leedahay oo control J waxa loo isticmaalaa copy waayadana oo laba xabo noqdo si arkaysaan kan kor imaadaysa meeshaan ku qoran tahay add layer mask meeshaan ku qoran tahay halkaas ilka siinaysa oo markuu layer-ka saas ku darsoomo waxa imaadaysa marka qaybtan ku qoran tahay brush halkaan ku qoran tahay halkaas ku dhufanaysaa marka saadana meeshaan color ku qoran tahay waa inuu ku ahaadaa waa inay ku ahaadaa black qaybtan korona black ku ahaadaa background inuu white ku ahaadaa marka saadana waa tiri doonaa marka qaybtan waa tiri doonaa oo ah sidaas loo sameeyo isagana qaybtan oo clip and mask labada qaybood oo qaybta madax banaanka soo saaraya iyo qaybta gudaha labada qaybood waa isla aragn sida loo sameeyo labada qaybood waa isla aragn sida loo sameeyo iyo sida loo isticmaalo qayb kale oo asagana waxa qayb kale oo asagana nooc kale sameyn doonaa si walba si arta u isticmaali kartaa oo nooc arta ka sameyn kartaa clip and mask oo sameyn kartaa hadii aan hadda mid nooc kale sameyno shape sidaan loo qaloocina inaan meel ku aragto u maleynaa asagana isla arki doonaa sida loo sameeyo marka sidaan u qaloocino kalarka arta siisan kartaa hadii kalarka soo doorano oo kalarka adiga dooqaaga samaysan kartaa anaga buluugana iska siinayna dhimalaan oo waxa iska practice waaye saana lana sawirkana soo qaadan doonaa meesha deeta meesha ku yaala adiga yaqaano aan iska soo qaatay marka sidaan soo boobsin doonaa kan marka u sameyno waa sida deeta waa marka labada qaybood inaad right click dhahdo oo clip and mask dhahdo iyo inaad isticmaasho alt oo alt la qabato saas ku geliso saas loo isticmaalaa labada qaybood hadda markaan sidaan u dhexgelino markaan sidaan hadda u dhexgelino oo clip and mask ku sameyno ka bacdi control J leenahay control J markaan dhahno copy ka bixino qaybtan aad layer mask taabani marka layer mask sidaan ugu darto qaybta brush hatiga qaybtan korna waa inay ku ahaataa black marka u tirtirno ka bacdi waa aragnay qaab loo sameeyo in layer mask sida loo sameeyo labada qayboodba waa aragnay marka waxaan rabnaa haddana inaan aragno qaybta hoose
qaybtan oo shape si loo qolo isagana shape si loo qolo ciyaarnayna sidaan kala ka dhigi kartaa wax muhiim ah oo hadda aad iska practice waayo halkaas ka dhiganana shape marka rabtina qolo qaybtan ku qoran tahay waa halkaas ku dhufani qaybtan hadii ay ku saarnayna marka soo doorato oo control T dhahdo meeshaan imaade oo edit marka imaado transform ku dhufani ka bacdina meeshaan ku qoran tahay waa halkaas ka dooranaysaa marka angle kaarta intaan loo boonto ku siinaya angle kaarta qaban kartaa oo rabtina qaloociso sidaan oo qaloocinaysa mid kaartina qabato oo rabtina qaloociso sidaas oo qaloocinaysa asagana sidaana loo sameeyaa oo ku badan aksi sameyn kartaa noocyo badan shapes kaasana sidaas loo qaloociyaa oo rectangle ka sidaas loo qaloocin ka wada sidaas loo isticmaalaa waxaan rajaynayaa inaad soo practice garan doontaan cashirkan ku soo celin doontaan inta cashirkan mid ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.